لذلك الأجور ولا ركعتيا ركعت السياسة إسبار سياسة الله دقنا مركز واحد بدنا نعطيه حقه على قد سنة معنا يعني ركعتين هذا الدولة دور الشدة هو تاجنا تحسوا كلواي مركز دور الشدة إنه يقبصونته أو يسحلا له قبصونته وحلا قفر دي الدولة دي فدرال كاي دولة دي الواقعنا إن الديار عنده تاجنته kuwa kale waxay taageeyeen marka ma bal qabanayo doorashada ma la aadayo ilaa qodobkan iyo qodobkan aniga la iifuliyo qooba la barayo biyo xunbale ma baxo qodobkan hadaan la iifulin doorashada ma la aadayo adduunka dhan Soomaalida waxay leedahay war doorashada dawladda joogtaa qaban jirtay ma qabatid wafam doorashadii marka inay aadaas ka baxaan ay qabtaan ay rabaan dawladda laakiin kuwa waxay leedahay waa in dantayda aan hadiga ma la aaday doorashada qabaay ma jirto marka caqabadahaas taagan waan rajaynayna marka inay xal hesho biidnillah laakiin mushkilada hadda taagan ee maantadan lagu soo kala dareeray ay taas waay oo sina la isumar waay yaani 8 biloodna la isku hor fadhiyay marka hadba shuruuda la keena shuruudii la jijiida muddo siday rabaana loo yeela haddana kuwa kale soo alifaanay keenaan war haddana nama qabateen naga daayay haddana siday rabaan ugu dambeyntii waxay joogaan hay'adaha dawladda waa in la kala dira oo qof xukunta la waaya mataqaana qof walba meesha ritax ka dhacdo hadii kale waa la isdilay taagay marka ujeedadaas oo dhan waxay tahay maxamed talaadan ee waxa uu sheegay waa meeshii mataladan ee waxa laga sheegay waa in horta xabadeedu faniinto nalkeedu demo runta taalo taas waa marka taasna ka yeeli mayno biidnillah alkariim magaaladaanuna waa dhisantay waana dhismaysaa haddii aan leedmo dadkeeduna waxay fahmeen waxa burburka iyo kala qaybsanaantu ay keeni karto khasaare ah iyo waxa dib u dhiska iyo dawladnimada iyo doorashadu ay keeni karto horumar waa la kala fahmay waana ilaasho doonaa biidnillah taala anoo ku hadlayo bulshada reer banaadir codkooda matalaaduna waa taala waa ka shaqaynay baarlamaanka marsiinay waad ogtihiin uu ogolaada baarlamaanka madaxweynuhuna waa uu saxiixay kaliya waxaa dhiman dhismihii ayaa dhiman in 13 hebel la yiraahdo besa dhiman iyo golayaasha deegaanka ila adinka soo dooratiin taasna waa idin diyaarinayna adinkaana dooranaysiin wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum.